السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إن حشرة تحرين نوعها يعني كبرني نقاب كلا قرب بوجات تقلن جبين تأم حلية قن كيسس كا عدد جامعة دكتور جارحان وحن وقت لقينا برنامج كان عدد جو ضلكا جامعة دكتور يعني كقلن جبين جامعة اللي هو بيعني يحيي وحلية قن بروجكت جابر كأما بوجات كيسس كيني قرآن مركانا وحن كبرنا عشرة وحلية قن سير الله قرب literature review-ga oo ah jabtarka ugu muhiimsan mid kamid jabtarada ugu muhiimsan buugga qalinjebinta hadduusan ardayga qorina uusan u awoodi u yeelan karin inuu ka qalinjebiyo ama buugga u dhamaystiro cashirka waxaa soo jeedin doono aniga oo idin turjumaani doono iyo macalimaad jaamacadaha westernka wax ka dhigto oo luqadda english ku sharaxi doonto aniga waa u turjumaani doonaa insha allahu tacaala. Hello, I'm Lilia Sevillano, and this lecture is on writing a literature review. qofkan waxaa la yihahdaa Lilia Sevillano sida magaceeda ka muuqato ama meesha ka arkeysiin cashirkan wuxuu ku quseeyaa sida loo qoro literature review. There are three areas we are going to explore. saddex qayb ayaan diiradda saari doonaa intaan ka hadlayno literature review-ga. First, we define what a literature review is. Secondly, we look at how to organize a literature review. And finally, how do we go about writing the literature review? So saddexda qaybood waxay noqon doonaan marka hore in la qeexo waxa uu yahay literature review-ga. qaybta labaad oo ah in la organize gareeyo ama la isku hagaajiyo literature review-ga. iyo qaybta ugu dambeysa oo ah in la qoro literature review-ga. What is a literature review? muxuu yahay literature review-ga? As the name implies, it sida magacaba aad ka fahmaysaan is a review of all the literature done so far on your topic. waa review ama dib u eegis lagu sameynayo wixii laga qoray meesha aad mawduuca aad dhinac ka qorto maxay dadka hore aqoon-yahanada maxay uga sheegeen mawduucaas. It is usually written as a separate chapter in the thesis. inta badanna waxaa loo qoraa separate chapter waa chapter gooni ka ah oo thesis-ka inta badan wuxuu noqdaa chapterka labaad ee thesis-ka. There are four things a literature review sets out to do. saddex qaybood afar qaybood ayuu literature-ka ka hadlaa. And these are that it focuses on what has been researched before on your chosen topic. afarta qayb waxay yihiin midda koowaad inuu diiradda saaro waxyaabihii hore looga qoray ereyada aad rabto inaad ka qorto. Then it highlights how your study will fill the current research gap. markaad ogaato wixii hore looga qoray in aad buuxiso booska bannaan ee aan weli waxba laga qorin. Thirdly, it points out why it is necessary to conduct your research. marka saddexaadna wuxuu sheegaa maxay muhiim u tahay maxay laga maarmaan u tahay in aad daraasadaada la anbaqaado. And finally, it sets the boundaries for your study, also known as the limitations of the study. ugu dambeyntiina macnaha xadka ilaa intee boundaries xuduud ayuu wuxuu sameynaa daraasadaada. An important element in the literature review is critical evaluation. waxyaabaha ugu muhiimsan literature review-ga waxaa kamid wax loo yaqaano critical evaluation oo ah inaad qiimeyn aada muhiim ah inaad ku sameyso waxaad qoreyso wax ka qoreyso. It is essential that you include a critical examination of the material you have read. macnaha waxaa laga rabaa inaad macnuhu si baaxad dheer la aad u qiimeyso macnaha materialiska waxyaabihi aad akhrisatay. For this allows you to justify and show how your work is different and why it is necessary to conduct research. marka aad wixii aad si qoto dheer la aad u daraasayso aad u akhrisato waxaad ogaan kartaa sababta ay daraasadaada muhiim u tahay iyo sababta booska bannaan aad u buuxinayso. laakiin haddii aadan si fiican wax u akrinin ma ogaan kartid booska bannaan iyo sababta adiga aad muhiim u tahay in aad sameyso daraasad. However, we will look at critical evaluation in detail a little later.
hadda marka dib ayaan ka ogaan doonaa critical evaluation-ka. I want to briefly discuss scope and length, as this is a common question asked. marka waxaan hadda ka hadli doonaa wax loo yaqaano scope baaxadda inta uu la ekaanayo taasna su-aashaas mar badan ayaa la isweydiiyaa literature-kayga ilaa baaxadda ayuu la ekaan doonaa. So what is the scope and length for a literature review? muxuu yahay marka baaxadda uu yeelanaa literature review-gaaga? Well, initially, you will be required to know a great deal about your topic, ugu horreyn waxaa laga yaabaa inaad wax badan aad ka ogtaa mawduucaaga, especially for the PhD. gaar ahaan ardayda doctorate-ka and PhD-ga diyaarinayso. But you may not have to write everything you know about it. laakiin lagama baahna wax kasta oo ogtaa inaad qorto. So, for the scope, you may limit your review to include the current state of the theory. baaxadda macnuhu waxaad kusoo daraysaa macnaha current status of the theory, macnaha waxyaabaha theory-ga hadda jiro ee socda waqtigaas. But how far back should you go? laakiin xad intee la-eg ayaa gudaha usii galaa marka literature-ka iyo current state of theory-ga. It really depends on the level of your research. waxay ku xiran tahay nooca research-ka aad baqaadayso. A rough guide is 10 years for a master's thesis. haddii aad arday master diyaarinayso waxaa u baahan tahay 10 sano ee lasoo dhaafay waxyaabihii wax laga qoray inaad literature-ka aad ka diyaariso. For doctoral students, more extensive investigation and going further back in time is required. haddii laakiin PhD aad tahay waxaa lagaaga baahan yahay 10 sano ka hor ilaa 20 sano oo kale wixii la qoray inaad macnaha daraasad aad ku samayso aad ka ogaato. The length will vary, and baaxaddu way kala duwanaan kartaa. it is best to discuss this matter with your supervisor. waxaan ugu muhiimsan arrintaa marka scope-ka baaxadda waxa aad aqrinayso ama wax ka qorayso oo literature-kaaga inaad kala hadasho supervisor-kaaga macalinka ku gaargareynayo. However, avoid being too verbose. In other words, do not be too lengthy with your discussion. waxaa muhiim inaad ka fogaato inaad aad uga fogaato discussion-ka waxa aad wax ka qorayso ama literature-ka inaad aad uga fogaato iyadana muhiim ma ah. Your review must demonstrate your ability to synthesize a body of literature. marka waxaa muhiim ah marka aad wax qorayso inaad synthesize garayso literature-kaaga. marka waa sheegi doonaa wax uu yahay synthesis. So, it should be fairly brief, but focused. waxa aad wax ka qorayso macnaha marka wax qorayso waxa aad literature-ka marka aad qorayso ha ahaado mid kooban laakiin diiradda saaraya waxa loo baahan yahay. So, what should be included in the review? maxaa lagu daraa Two marka things. review? A summary of existing knowledge on your topic, and a critical evaluation of these works. marka laga hadlayo literature-ka waxaa ku daraysaa summary-ga wixii kooban knowledge-ka hadda jiro oo kooban iyo critical evaluation si qiimo dheer waxaad u qiimeysay. Initially, you are examining the key research done on your topic. Basically, the literature review seeks to answer the following questions. sida guudba literature-ka wuxuu ka jawaabaa su-aalahan soo socda. What research has been done previously? research noocee ama daraasad noocee ayaa hore loo ambaqaaday? What have others said about this topic? dadka kale maxay ka dhaheen mawduuca aad wax ka qorto? How is this research relevant to my study? dadka waxay wax ka qoreen iyo aniga waxa aan rabay inaan wax ka sameeyo sidee xiriir u leeyihiin intay iska qaadan karaan? How is it different from my study? sidee ugu duwantaa daraasadeeda wax dadka kale ay hore u sameeyeen? Do the results of the existing research agree with one another? daraasooyinka hore loo ambaqaaday macnuhu agreement macnaha mis qaadanayaan oo wax jawaab isku dayan ay soo saareen mise waa iskhilaafsan yihiin? Or is there disagreement? Are there flaws in the existing literature? ma jiraa flows okay 2005 2010 2015 saas oo kale marka research la sameeyay oo flows macnaha si nidaam u socdaan mise gaab ayaa jira waqtiyada qaarkood waqti aan research la sameyn ayaa jira. Always keep in mind that you are showing which gap in the literature your research will fill. mar walba waxaa ogaataa literature-ka danta laga leeyahay waxay tahay markaad wax aqrinayso inaad ogaato gaabka jiro ee adiga aad buuxinayso. mar walba marka maskaxda ku haayo intuu gaabka jira intee banaan u buuxiyaa. So, how and where do you start? marka intee wax ka bilaabay sidaas u bilaabay? With research history. All research has a history that provides the precedent for further work.
marka research markaad bilaabayso wax kasta waxay leeyihiin waa research history taariikh ay leeyihiin meeshii wax kasoo bilowdeen meesha ay wax marayaan. This is the starting point for your research. marka waxaa muhiim ku ah inaad ogaato macnaa meeshaas waa meesha aad wax ka bilaabayso history of research. You need to decide which literature is most pertinent to your review. waxaa muhiim ah inaad go'aansato literatureka keebaa ugu muhiimsan oo xiriirada daraasadeeda. Conduct a library search, both online and using hard copies. marka sidaad u ogaato meesha aad wax ka bilaabayso iyo history iyo waxyaabahaas waxaa u baahan tahay marka library inaad tagto ama inaad raadsato hard copy online aad ku hesho ama macnaha soft copy labadaba oo aad ku samayso research history wax ku ogaato. Survey university databases, abstracts and indices in books. marka waxaad tagtaa anas survey maxaa la dhahaa university database marka jaamacadaha hadda waxaa jira wax la digital libraries ka tag marka abstractyada aqriga oo journalada seminarigooda aqriga index of the books soo meelahaas oo dhan marka si aad at least horta basicska u hesho. It is advised that you make an appointment with a librarian for a research consultation. marka arrintiiska sameynayso waxaa lagu waanaa marka inaad la kulanto qof oo library ka shaqeeyo si uu ku gaargareeyo waxyaabaha as-aasiga ah kuu sheego. Prioritize your examination of material type in this order. marka waxaa muhiim ah inaad muhiimadda aad kala sarreysiiso qaabka materialiska aad wax ka akhrisanayso si aad literatureka wax ugu samayso. Begin with articles in refereed international journals. ka bilaab marka artikalada oo refereed international journalska ah. The research published in these materials are recent and widely disseminated. sababta waxay tahay journaladan researchada lagu daawaco waa macnuhu waa kuwa ugu dambeeya waa up to date so marka waxay kaa caawinayaan wixii ugu dambeeyey ee laga qoray eediyada inay kuu sheegaan journalada noocaane. Because they have been refereed, experts in the field have provided its researchers with significant comments for improvement and fine-tuning. sababtana waxay tahay dadka oo macnaha waxaa ka shaqeeya ama ku shaqo leh dad aad expert u ah fieldiga ee markaas wax laga qoraayo marka update information ayaa ka helaysaa international journalistka. Then proceed to books or chapters in edited books, followed by articles in national refereed journals. so markaasna book chapterska iyo articles international journalistka ayagana sidoo kale ku xiji. Next are conference papers or research reports from government, committees and professional organizations. marka waxaa ama conferenceska shirarka researchada ama paperska laga jeediyey iyo research reportka raad numberka shanaad oo PhD dissertations iyo masterka ana ardayda jaamacadaha waxa ay wax ka qoreen. PhD dissertations and MA theses provide excellent material for your review as well. Finally, peruse websites and articles in non-refereed journals. As you do your reading, constantly check the course requirements and consult with your supervisor to ensure you are on the right track. inta aad wax aqrinayso mar walba marka iska hubi inaad jidka saxda ku taagan tahay mar walbana la tasho marka supervisorkaaga. We now turn to organizing a literature review. marka hadda waxaan gelinaa qaabka loo organize garanayo literature review. Davidson and Tolich, 1999, page 94. Summarize the literature review as follows. so marka ninkan David la dhahayo literature review waxa uu yahay marka uu kusoo summarize gareeyay ama kusoo koobay sida soo socota. The goal of the library search is to assemble what other researchers have said about your topic of interest and to distill this into a coherent statement. This involves a lot of reading, note-taking, paraphrasing of arguments, summarizing of the key findings, and extracting the most critical quotes. What you come up with at the end of all this should read much more like a short essay than simply a jumble of disordered notes. so marka muhiimadda waxay tahay literature review in qofka uu helo artikalada hore laga qoray eediyada asaga uu rabo
then wixii la qoray inuu soo koobo qaato waxyaabaha ugu muhiimsan oo findingska ah kadib markaas uu la imaado ama uu ka ogaado gaabiska jira marka muhiimadda marka ugu muhiimsan waxay tahay inaad ogaato wixii hore laga qoro ereydaada inaad aragto gaabka ka banaan iyo markaas inaad soo koobto oo adiga markaa wax loo yaqaan synthesis aad ku samayso. As you would do for the essay, the literature review should be well structured, and we will get to this in a while. marka waxaa muhiim marka inta aad literature review-ga inaad mar walba aad well structured yahay si nidaamsan aad u qorto oo aysan micnaha wixii aysan ay ahayn wax isku dhexyaac ah. It is best to ask your supervisor for the required format, as this varies across disciplines. markastana waxaa muhiim ah supervisorkaaga inaad weydiiso maxaa yeelay dhowr hab oo kala nooc ayaa jirto oo loo qoro literature review ma jirto macnaha hal nooc oo keliya oo nidaam ah laakiin habab kala duwanaa jira marka mar walba waxaa muhiim ah la tashato supervisorkaaga. Synthesize the information into a cohesive whole. marka synthesis ku samee si oo weliba cohesive oo isku xigto oo nidaamsan marka aad wax qorayso literature-kaaga. By cohesive, we mean that the ideas fit together clearly in a way that readers can easily follow. marka waxaa loo jeeda cohesive maxay tahay in idea ay isqaadqaadanayso oo macnaha aysan kala daadaadsanayn si qofka marka wax aqrisanayo oo u arki karo min bilow dhex ilaa iyo dhammaan marka wixii waa inay wax isku xiran ay yihiin aysan ahayn wax kala daadaadsan. In other words, the ideas are arranged in a logical manner. si kale haddii loo dhaha marka idea waa in macnaha fikirka waa inuu si macquul isu qaato uusan ahayn mar xagga bood mar badda ka hadal mar beri ka hadal mar webi ka hadlaysan naqanin so wixii waa inay wax isqaadanaya ay yihiin. Let's first look at the basic components in a literature review. marka aan fiirino marka waxyaabaha aas-aaska u ah literature review-ga. These are general background information, theory, review of the literature on the instruments, and summary. so marka intaan aawinayso marka background information-ka in la helo theory oo lagu taageerayo literature-ka instrument-iga waxyaabaha methodology-ga la isticmaalay iyo summary marka literature-kaaga waa inuu intaa ka kooban information background theory instrument iyo summary. Let's look at general background information. aan fiirino marka muxuu yahay general background information. Initially, introduce or discuss the topic, key concepts, and terms relevant to your study. na wuxuu ka hadlaa waxyaabaha ugu muhiimsan wuxuu ku baraa topiga iyo macnaha keywords-ka ugu muhiimsan mawduucaaga ayuu ku siinaa introduction topiga. Describe the scope and organization of your literature review. wuxuu kaloo kuu sheegaa marka baaxadda intay la eg tahay literature review-gaaga. Then, review past and present literature in relation to your research purpose. kadib macnaha waxaa review ka sameynaysaa wixii hore iyo wax hadda socdo ee la xiriiro macnaha research-kaaga. And finally, clarify the purpose of your study. kadib ugu dambeyntii marka kala caddee ujeedada aan ka leedahay hadafka literature review-gaaga. Then, outline relevant theories that impact your study. kadibna waxaa sheegtaa marka theory-ga xiriirka la leh daraasadaada. Even in groundbreaking research or new fields of research, there must be some foundation upon which your work rests. xataa haddii research-kaaga uu yahay mid cusub ugu yaraan wax uun theory waa ay jiraan marka la xiriir laha theory-ga marka waa inaad theory aad sheegto. You may find that not all literature relates directly to your topic, but integrate key points from related studies and make the appropriate inferences. marka inta aad wax qorayso waxaa la kulmi doontaa mana daraasado kala duwan marka daraasad kasta ama mana article kasto xiriir lama laha macnaha waxa aad wax ka qorayso laakiin waxaa lagaa rabaa marka inaad wixii inta isu keento wixii isqaadanayo oo daraasadaada xiriir la meel isugu keento marka. Whatever topics you include, it must bear some relationship to your topic. waxaana muhiim ah marka mawduucaaga wax kastoo aad kusoo darayso waa inuu xiriir la leeyahay in wax aan xiriir la lahayn oo aanan qaadan karin meeshaan soo gelin marka wixii isu keen laakiin ha ahaadaan wax isqaadan karo. Your literature review should also include a review of literature on the instruments. literature review-ga xataa waa in lagu daro marka instrument-iga wixii oo aalad ahaan loo isticmaalo wax loo yaqaano methodology-da la isticmaalay. As the phrase indicates, review the literature on the instruments or measures you will use as part of your study. so tan waxay kaa caawin doontaa hadhow marka aad hadhow ugu dambeyntii marka aad methodology-ga isticmaalayso
in aad ogaato wixii dadka hore ay isticmaaleen si adigana markaas methodka ay dadka literatureka aad soo akhristay isticmaalayay adiga mid lamid un baa isticmaalaysaa mid kadib ma isticmaalaysa marka literatureka wuxuu kaa caawinaa inaad ogaato methodka la isticmaalay si adigana hadhow aad u abalaaglayso methodologyga noocaas ah. You must present evidence that supports your choice of instrument over those not chosen. So markaasna waxaa u baahan tahay inaad adiga support garayso methodologyga aad isticmaalayso haddii ay jiraan macna dadka kale haddaysan isticmaalin waa inaad sheegto sababta ay isticmaali waayeen iyo gaabka ay ka tageen marka methodka adiga aad isticmaalayso. Include reliability and validity estimates and a description of samples that have received the instrument. So marka reliability validity waa inay jiraan marka this like waa very technical words waxaan ku baran doonaa marka aan joogno methodologyga. At the end of your literature review, include a summary. Ugu dambeynta marka literature review waxaa kusoo dartaa marka wax loo yaqaano summary. The summary is a clear and concise account of the current state of knowledge on your topic and the instruments used. So marka summary macnaha waa inuu ahaadaa mid cad oo caddeynaya knowledge iyo instrumentiga loo isticmaalay researchkaaga iyo macnaha qaabka loo ambaqaaday iyo meelaha wax laga soo qaabka iyo dhan. It should provide a sense that you have thoroughly examined the background to your study and thereby endorses the decision to research on your topic. So marka waa inaa caddaysa marka in si qoto dheer la investigation u samaysay backgroundkaaga iyo wax walba aad samaynaysa marka inaa u haysato qiil oo aad leedahay researchkan waxaan ama literatureka ayaan kasoo ogaada wax aan sameeyo oo dhan. Now that we know the basic components in the literature review, marka hadda waxaan filayaa inaan ognahay waxyaabaha aas-aas ku ah literature reviewga aad ay umahadsantihiin waxaan filayaa inaad ka hesheen oo aad ka faa'iideysan doontaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.